xalay fiidkii kooxo hubeysanaya degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku toogteen Wariye Cabdiwali Online oo kamid ahaa howlwadeenada TV-ga Universal gaar ahaan wuxuu ahaa wakiil wareedka Universal halkaas oo uga soo warrami jiray guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiwali Online markii kooxahaas ay bistoolada ku garaaceen ama ku dhufteen waxa loo soo qaaday dhaawaciisa deegaanka ceelasha biyaha dowladka Muqdisho isbitaal ku yaalo si halkaas loogu baxnaaniyo intii uu soo socday sida ay noo sheegeen qaar kamid ah heladiisa ayuu jidkii ku geeriyooday tiisa ayaa soo dhamaatay Cabdiwali Online Allah u naxariisto waxa maanta lagu wada saacadaha soo socdo in aas lagu sameeyo degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose aaskaasi sidoo kale idiyaaso waxa lagu wada inay ka qayb galaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaan bahda TV-ga Universal maamulka ugu sareeya ilaa guud ahaan shaqaalaha waxa ay murugada iyo sidoo kale dareenkaas xanuunka badan ay la qaybsanayaan marxuumka ehelkiisa iyo sidoo kale guud ahaan qaraabadii uu ka baxay saaxiibadiiba in samri iimaan oo Allah ka siiyo dabcan Cabdiwali Online wuxuu ahaa marka aad fiiriso wariyaasha inta badan ugu firfircoon gobolkaas Shabeellaha Hoose wararka kala duwan soo dir marka aad fiiriso dhinacyada kala duwan hadba warkii markaas qosay ayuu soo gudbin jiray waxaan leenahay rabbi ha u naxariisto guud ahaan bahda saxaafadda waxaan leenahay insha Allah samri iimaan Allah ka siiyo fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay channelkan DJ Borre subscribe saar si aad ula socoto xog walba oo aan halkan ku soo baahino like share comment si xog walba oo marka aan soo daabacno aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daaraca mahadsanid